السلام عليكم داوديال قضبضة عدكو داود دونتان قرن جوغ نيوز waxaa kamid ah kiiba oran lahayd leeyahay degdeg xildiga oo de madax laga dhigo waxa ku ri adduunyada waxa ku dhaafay taas kala kicinaysid xilkeeda badana igu bedela xilku waa iska halis badan yahay isagoo iska hadasho ba hadana umad isku jiiday sama ha xilkaas oo xalay حبس كمان عشان كمان حيكاس فنان كويل نمعان عبد الرحمن هلاع يا مانت الله مقعابي حل عصب كدب وريتك صباح هذا حفيز كوزير كورفافيتا صوماليا محمد عبد حير ماري شيخ مختار ربو علي ابو منصور ايالا دغ اسبيتال كديك فير مغالده مقدشو 15 رمضان kuna beegalad 22 la soo dhaafay bisha May markii uu xanuunsaday sida ay ogaatay warbaahinta qaran joog news xildhibaanad Ilhaan Umar oo ka tirsan Congress-ka Mareykanka ayaa lagu eedeeyay in dhaqaalihii ololaha doorashada Mareykanka ay u adeegsatay si gaar ah waxa maalmahan ugu dambeeyay aad loo hadalhayo safar la sheegay in madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi ku degi doono caasimadda Sweden ee Stockholm waxaa saaki magaalada Muqdisho dib ugu soo laabtay gudoomiye ku-xigeenka koowaad golaha shacabka Cabdiwali Ibrahim Muuday oo maalmahan la soo dhaafay ku maqnaa dalka dibadiisa balse waxa la soo dhaweeyay si aan hore loogu soo dhaweyn magaalada Muqdisho dowladdu cajiib ah oo ka sameeyay garoonka diyaaradaha aadan cabdi marka ka imaanay magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika ayaa sheegayo in saaki deegaan magaaladaasi ka tirsan dil iyo dhaawab loo geystay laba muwaadin Soomaali ah qodobadaasi qodobo kale ayaad ku daawan doontaan Qarjoog News markaana ku soo dhawaada warkii oo dhameystiran kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba aad naga daawanaysaan oo caalamka ka joogtaan ayna ku horeyno fanaanka weyn Nimcaan Abdiraxmaan Hilaac ayaa maanta loo magacaabay xil kadib wareegto ka soo baxday xafiiska wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maaray wareegtadan ayaa Nimcaan Hilaac loogu magacaabay agaasimaha wax soo saarka gelinta iyo hubalada waabari waxaana xilkaasi laga qaaday Maxamed Xasan Barow wareegtadan ka soo baxday xafiiska wasiirka warfaafinta ayaa xilka looga qaaday agaasimihii hore ee wax soo saarka gelinta hubalada waabari ayaa sidoo kale Maxamed Xasan Barow loogu magacaabay la taliyaha wasiirka arrimaha horumarinta iyo fanka fanaanka Nimcaan Hilaac ayaa kamid ah fanaaniintan da'da yar oo aan baxay sanadihii ugu dambeeyay waxaana uu fanaankani isagoo oo tagay magaalada Hargeysa ku noolaan muddo cadaadis xoogan kala kulmay maamulka Soomaaliland waxaana uu kamid yahay fanaaniinta loogu taageerada badan yahay isagoo leh dabeecad wanaagsan fanaanka Nimcaan Hilaac ayaa lagu xasuusan doonaa heesaha uu soo qaado mid bulshada taabanayso waxaana kamid ah waxaan weli ku guda jirnaa wararkeena Qarjoog News markaana Muqdisho Sheekh Mukhtaar Rabow Cali Abo Mansuur ayaa la dhigay isbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho 15 Ramadaan kuna beeglad 22 bishii la soo dhaafay ee May markii uu xanuunsaday sida loo sheegay warbaahinta sida ilo wareegto lagu kalsoon yahay ayaa u sheegay warbaahinta in Abo Mansuur ay ka xanuunsanay kaliyaha waxaana uu isbitaalka ku jiray muddo 3 maalmood ah waxaana la dhigay qaybaha gaarka ah iyadoo loo diiday inta badan dhaqaatiirta iyo dadweynaha waxaana arintiisi gacanta ku hayay dhakhtar ugu sareeya Digfeer wadashada dalka Turkiga Sheekh Mukhtaar Rabow ayaa hadda wanaagsan oo xaaladiisa soo hagaagaysa ayaa la sheegay in xanuunkan kaliyaha uu hore u qabay isla markaana uu mararka qaar uu ku soo kaco marka uu ka soo baxay al-shabaab ayaa sidan oo kale waxa horay looga dhigay isbitaalada waxaana sababaha uu ugu soo beeray dawladda ayaa la sheegay inay qayb ka ahayd arintan caafimaadka dhaqaatiirta caafimaadka Abo Mansuur ayaa sheegay inuu wanaagsan yahay waxaana ay u qoreen daawo iyo dhaqaatiirta gaarka ah loo sheegay inay siin doonaan daawadaasi sida ay noo xaqiijeen saraakiil ka tirsan isbitaalka Digfeer sidoo kale arintani waxa warbaahinta la wadaagay una xaqiijiyay nabadoon iyo saraakiil kale oo u dhow Abo Mansuur ma jirto wax war ah oo ka soo baxay dhanka dawladda Soomaaliya oo arintani ku saabsan saraakiil ka tirsan hay'adda NISA oo aan weydiinay ayaa sheegay in aysan xog badan ay ka helin arintani Abo Mansuur la markaana aysan ogaan karin qof kasta balse ay gacanta ku hayso mas'uuliyadda sarsare ee dawladda xildhibaanad Ilhaan Umar
oo ka tirsan Koongareeska Mareykanka ayaa lagu eedeeyay in dhaqaalihii ololaha doorashada Mareykanka ay u adeegsatay si gaar ah. Guddiga maamulka dhaqaalaha Minnesota ayaa sheegay in lagu helay dambi ah in ay jebisay xeerka gobolka waxayna ay saareen ganax lacageed. Guddiga ayaa sheegay in Ilhaan ay isticmaashay lacag gaarayo $3,500 Mareykanka ah oo ay ku bixisay safarro ay ku kala tagtay Florida iyo qaybo kale ay ku bixisay canshuurta celinta ay samaysay. Waxay guddiga sheegeen in ay heleen caddeyn ah in Ilhaan Omar kooxdii ololaha ay u qaabilsaneed oo u iibiyay tigidh diyaaradeed ee Boston ay ku tagtay halkaas oo ay ugu qayb galaysay kulan siyaasadeed. Sidoo kale qayb waxaa lagu bixiyay hoteelada ay ka degtay Washington DC oo ay ku qayb galaysay ama wareysiga ay ku bixisay kaas oo ahaa UN ama Gaarar ah. Sida uu waramay raadiyaha shacabka Minnesota, Ilhaan Omar ayaa sidoo kale lagu helay in lacagta ay ku adeegsatay safaradii Chicago sida uu u aqbasho abaalmarinta la siiyay ee dhaqaale ururinta ay ka samaysay. Sida uu qabo sharciga gobolka, safarada waa in ay noqdaan kuwo la xiriira arrimaha xafiiska. Sida guddiga uu sheegay, Ilhaan Omar waxay ahayd wakiil gobolka markii xeerka laga xadgudbay. Sidoo kale waxaa Ilhaan lagu helay in $1,500 Mareykanka ah lagu bixiyay arrimo la xiriira saxiixidda canshuurta celinta taas oo aan la xiriirin ololihii doorashada waxaana ay dalbadeen in la soo celiyo. Waxaa kaloo la saaray ganax lacageed oo gaaraya $500. Sida uu qoray wargeyska Washington Post, Ilhaan Omar ayaa sheegtay in arrintaani ay ka dambeeyeen dano siyaasadeed. Qoraal ka soo baxay kooxda ololaha waxa ay ku sheegeen inay ku faraxsan tahay in baaritaankani ay ka dhamaaday ayna ka go'an tahay inay u hoggaansanto guddiga waxa soo saaray. Waxaa maalmahani ugu dambeeyay la hadalhayay safar la sheegay in madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ku tagi doono dalka Sweden gaar ahaan caasimadda Stockholm. Wararka ayaa waxaa si cad u beeniyay xafiiska Soomaaliland ku leedahay dalka Sweden. War-saxaafadeed ka soo saaray xafiiska Soomaaliland ee Sweden ayaa sheegay in aysan jirin safar uu qorsheynayo in madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ku imaanayo Stockholm oo ay ku arkeen oo kaliya wararka baraha bulshada. Wakiilka Soomaaliland ee Sweden Sakariya Xasan Wacays ayaa wararkaasi ku tilmaamay waa aan sal iyo raad lahayn oo xaqiiqada ka fog. Danjire Sakariya Wacays ayaa sidoo kale waxa uu ugu dambeyntiiba jaaliyadda Soomaaliland ku sugan Sweden ugu mahadceliyay sida ay ugu xiiso qabaan madaxweynaha inuu safar ka imaado. War-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska Soomaaliland ee ku leedahay dalka Sweden ayaa waxa uu u qornaa sida tan: waxaan ku wargelinaynaa dhammaan shacabka Soomaaliland gaar ahaan bulshada Sweden ee aanan jirin wax safar ah oo madaxweynaha ku imaanayo dalka Sweden. Sidoo kale aanan jirin wax aan ka ahayn baraha bulshada in la wareejiyo oo ay fake tahay ama been. Aniga ka wakiil ah Sakariya Xaaji Wacays ahaan aanan jirin wax xidhiidh ah oo arrintan kala yeeshay madaxtooyada Soomaaliland iyo wakiil ahaan waxaan la xidhiidhay wasaaradda arrimaha dibadda waxaana ay ii sheegeen in aanu jirin wax safar ah uu qorsheynayo ama kaliis ah madaxweynaha Soomaaliland uu ku imaanayo dalka Sweden. Isla markaana wararkaasi dhex wareegayo baraha bulshada aanan waxba ka jirin aysan run ahayn. Ugu dambeyntiiba safaaradda Soomaaliland ee Sweden iyo wakiilka waxay bulshada reer Soomaaliland gaar ahaan kuwa ku dhaqan dalka Sweden ay ugu mahadceliyeen sida ay ugu xiiseynayaan imaanshaha madaxweynaha dalka Sweden ee aad ugu faraxsanayeen ama aad ugu faraxsan yihiin in madaxweynahooda uu yimaado dalka Sweden. waxaa saaki magaalada Muqdisho dib ugu soo laabtay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Cabdiwali Ibraahim Muudey oo maalmahan la soo dhaafay ku maqnaa dalka dibadiisa. Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka waxaa garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ugu hortagay si weyn u soo dhaweeyay xildhibaano badan oo ka tirsan golaha shacabka. soo dhaweyntan gudoomiye Muudey ayaa u muuqato mid dhowr tus ah oo uu sameynayay waxaana ku soo aadaysa xilli maalmihii la soo dhaafay ay soo baxayeen warar sheegay in xildhibaanka ay ka wadaan mooshin xilka qaadis qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka xilka loogu tuurayo. Xildhibaan Muudey ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde waxaa iskugu jira wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya waxaana sidoo kale ku jira xildhibaano
lagu hanto oo ay aad iskugu dhow yihiin madaxtooyada. Warbaahinta qaar ayaa maalmahan la soo dhaafay baahisay in mooshin ka dhan ah xildhibaan Cabdiweli Muudey oo dhawaanba xildhibaanada ku dhow madaxtooyada kadib markii uu ka soo horjeestay sharciga doorashooyinka ay gadaal ka riixayso madaxtooyada. Soo dhawaantani noocan ah ayaa u muuqata mid loola tus u ah oo loo sameynayo gudoomiye ku-xigeenka golaha shacabka waagiisii hore sidaan aan loo soo dhaweyn jirin mana la soo bandhigi jirin oo warbaahinta ma aysan soo bandhigi jirin balse waxaa loogu yeeray warbaahinta oo soo dhaweyntiisa marka dalka uu ku soo laabanayo waana mid loola tus u ah maanta soo dhaweyntiisa. wararka ka imaanaya magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika ayaa sheegay in saaki deegaankaasi magaalada ka tirsan dil iyo dhaawac loogu geystay muwaadiniin Soomaali ah. kooxaha burcadka hubaysan ayaa saaki weerar ku qaaday dukaan ay lahaayeen ganacsato Soomaaliyeed oo ku yaalo deegaanka Standard ee magaalada Cape Town, waxaana ay halkaasi ku dileen hal ruux oo Soomaali ah halka midka kalena ay dhaawac ugu geysteen. dadka ka dhaw halkaasi lagu weeraray ganacsatada Soomaaliyeed ayaa sheegay in burcadkaani ay rasaas ku fureen dukaanka raggii joogay, waxaana ay rasaastaasi ku geeriday macallin Cabdullaahi Cali Ciise halka kale uu ku dhaawamay Nuur Bafana. burcadkaani dilka iyo dhaawac geystay ayaa sidoo kale la sheegay in ay dhac u geysteen dukaanka, waxaana ay markii dambeyn ka baxsadeen goobta ay burcadkaasi hubsadeen in dilka iyo dhaawac ka geysteen. dalka Koonfur Afrika ayaa si joogto ah waxaa dilal iyo dhaawac loogu geystaa muwaadiniin Soomaali ah oo dalkaasi u tagay nabad iyo nololba oo ay ka helaan, waxaana Soomaalida dalkaasi lagu dilay sanadihii la soo dhaafay ay kor u dhaafayaan 1,000 ruux. waxaan intaan nooga idlaaday wararkii aan idinka gaynay amuuraha Soomaaliya iyo caalamka. warwarka lamid inta ku wada kulmi doona waxaan idinka ka teganaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.